يا ورقي قيلada iyo oohinta ka soo yeedhay ma maqasheen xaawali taniya sheekhyaashi waxay dhaheen dumarka jiimka qaadaha guursanina oo dumarka jiim haday aadayaan ragow ha u ogolaanina naftiina ay halis ku yihiin kulaha oo anaga nafteeda meeqasna halis lagu ahaa meeqasano baa gabdhaha mid la kufsado mid tuug uu qabto mid telefoon laga xoogo mid gurigeeda lagu tumo anaga milaysanaa nafteeda halis lagu soo ahaa dumarku waa inay jiimka qaadaan oy feedho Nigerian ay yeeshaan oy nooq waxay u dhahaa darbiga kuma saxaan in la idin tumo waay faaraxyaal yaa waa in nugta la idin ka saaraa sababtoo ah dumarku anagu hadaan dumar nahay nabadgeliya ayaan nahay nabadda ayaan jecelnahay maba dhici karto gabadhi nin meel socdo in iska disho waa mustaxiil ama ay gardareysato ay daandaansato laakiin gabdhuhu inay jiim qaadaan oo murqaha dhisaan oo isxoojiyaan way wanaagsanaan lahayd gabdhaha oo dhan jiim inay wada qaadaan aad iyo aad ay u wanaagsanaan lahayd waana kula talinayaa gabdhaha aniga xataa hadda inaan soo qoro waay sababta oo ah gabadhu markay ugu yar tahay de nafteedii isku difaacaysaa nafteeda ay isku difaacaysaa mid kale anagu hadaan dumar nahay cidna ma gardareysano cidna ma daandaansano tuug dadka dariiqa u istaago dadka ku soo boodo toori dhuunta ka saaro mobile ka dhaca malihin maxaa la dhihi jiray wax dib kala geysta malihin hadii ay gabadhinin disho ama ay gabadhinin u gacan qaado deedan un baa ku kaliftay wixii ku kalifay la soo ogaado dumarka yaan jiimka loo dirin iyo dumarku yaani jiim qaadan iyo maya sheekho ka daadii saas ma hadde gabdhuhu waa inay jiimka qaadaan dhacdi maxaa ka qaldan gabdhuhu si ay isu difaacaan jiimka waa inay gabdhuhu qaadaan oo murqo Nigerian ay yeeshaan oo madaxa ku dhuftaan faaraxyaash saas waay maanta ani faaraxyaash waan ku kacsanahay